kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan khiyaarta qiimaha qadarinta xilka iyo xilkasnimada inaga mudan baa idil ahaan meel walba oo joogtaan iyo si walba uu muuqaalkayagu iyo maqalkayagu hagaag idinkugu soo gaarayo kusoo dhawaada fariintii cusleyd ee ay soo dirtay Faiza Sheekh Maxamed kuna socota gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ee la bedelay Thabit Cabdi. dunidu waa mayrto hadba waa nasiib calaf iyo qadar intuu rabbi kaaga qoray waxaa jira dunida maalmo ku farxad geliya sidoo kalena waxaa lidigooda ama dhinaca kale aad ka arkaysaa maalmo ku muruga geliya maalmaha ku farxad geliya oo ay ka mid yihiin aroosyada xafladaha noloshaada oo awlaad adiga kaamida ay kusoo biiraan maalmaha murugada oo qof dhintay ama murugo inteeda ka badan ay kusoo wajahday balse farxadda iyo murugada dhibaatooyin u dhaxeeya ee quus ama rajadhiga ayaa jira kuwa oo kugu sababa adigoo noolayn haddana aan dhiman waxaa jirta qisooyin la yaab leh oo dunida intooda badan soo mara dadkana quus iyo rajo gaarsiiya islamarkaana ay ku noolaadaan nolol dhimasho iyo geeri midnaba aan hayn Faiza waxay ka mid tahay Faiza Sheekh Maxamed waxay ka mid tahay gabdhaha Soomaaliyeed ee ugubka ee soo baxaya ee da'ada 16 sano jirka waxaana dhibaato baahsan lagu gaarsiiyay Boosaaso taa oo sababtay in xubinteeda taranka xabad lagaga dhifto dhibaatooyin kalena la gaarsiiyo Faiza Sheekh Maxamed ayaa xaaladeeda caafimaad iyo dhibaatooyinka soo gaaray nolosheeda ka dhigtay mid quusata oo rajo dhigta maadaama gobolada Soomaaliya iyo guud ahaan geyga Soomaaliya iyo ugu dambeynba caasimadda Muqdisho wax looga qaban waayay Faiza Sheekh Maxamed ayaa kafaalo qaaday xaaladeeda caafimaad gudoomiyihii la bedelay ee gobolka Banaadir Thabit Cabdi ka oo kafaalo qaaday dhammaan kharashaadka ku baxaya caafimaadka loogu qaaday dalka Turkiga waxay ku soo beegmaysaa Faiza fariinta ay u soo dirtay maamulka gobolka Banaadir xilli xilka qaadis lagu sameeyay gudoomiyahaasi isla markaana loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir wasiirkii hore ee warfaafinta mudane Cabdiraxmaan Cismaan Injineer Yariisow fariinta ayaa ahayd sida tan waxayna ahayd mid xanuun badan oo dhammaan qalbiyada Soomaaliyeed gabar walba wiil walba oday walba oqaal walba iyo qof walba oo ibn aadan oo damiir leh taaban doonta waxayna u dhacaysaa sidan inkastoo xilku wareegtay yahay haddana ma jeclaysan inuu xilkaasi baneeyo waayo shaqada uu hayay waxay ahayd mid bulshada ay ku diirsatay aniga ahaan Faiza ahaan weligay isma oran qof madax ka ah Soomaaliya ayaad la kulmaysaa oo weliba wax kuu qabanaya balse dhaawaca markuu igaaray waxaan galay mugdi reerkayguna waxay habeen walba aan indhahooda ka dareemayo walwal iyo walbahaar in ka badan intan aniga aan dareemayo xaalado adag ka bacdi Muqdisho ayaan imi hospitaal ayaan galay mar kale waxaa soo gaartay rajadhig quus ah in aan waxba leeyaga qaban karin Muqdisho muruga kale ayaa inoo bilaabatay aniga iyo waalidkay gaar ahaan aniga oo ahaa gabar 16 sano jir ah rajana ka lahayd nolosheeda inay wax ka badasho isla markaana waalidkeeda ay wax u qabato farxad ayaa inoo timid maalmaha ka mid ah kadib markii kiiskayga loo gudbiyay duqa Muqdisho mudane Thabit 2 maalin kadibna waxaa helnay jawaab naga farxisa oo ahayd in gudoomiyaha uu kafaalo qaaday qarashka igu baxayo durba waxa la soo sameeyay baasaboor waxa loo dalbay hooyo iyo aabe 2 baasaboor sidaas oo kale si la midna waxa baasaboor loo dalbay aniga oo ah Faiza iyo qofka dhibta oo gaaray niyad ayaa markale farxadeeda gashay balse waxay ila noqotay wax mala awaal ah aan dhici karin
waxaa ii xigay in fiisaha uu amray in baasabooradaasi lasoo saaro. isbuuc kadib waxaana la yidhi safar ayaa isku diyaarinaysaan, turkiga ayaadna caafimaad u aadaysaan. hooyo iyo aabbe habeenka waxay u seexdeen si raaxo leh oo weliba farxad ay ku dheehan tahay. hooyo inta ay seexan waxay la hadlaysay ehelkayaga oo jooga baadiyaha Buuhoodle. dhammaan waxaa loo duceynayay dadka Muqdisho degan iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir, Allah nabadeeye. noloshayda waxay yeelatay rajo mar kale. maalintii aan baxaynay waxa uu nagu yidhi waxaan rabaa adigoo soconaya inaad soo laabato. sidaas ayuu igu yidhi Thaabit Cabdi. hooyo iyo aabbana wuxuu ku yidhi ha ka walwalina nolosheeda iyo idinkuba waxyaabaha idinku baxay inta aad joogtaan Turkiga aniga ayaan ka faala qaaday waana bixinayaa. haddaba waxaan bilaabay socod. waxaan niyeystay aniga oo soconaya inaan Muqdisho ku laabto oo aan arko shakhsigii rajadeedii noloshayda dib ugu soo celiyey una soo nooleeyay rajadeedii mar kale. waxa uu ii baray in madaxda Soomaaliyeed ay ku jiraan kuwo damiir leh sida Thaabit oo kale. Muqdisho weligay ma tegin, waan ka baqanayay ammaan ahaanteeda, balse markaan aragnay shacabkeeda iyo maamulkeeda waxaan go'aansanay meelahan iyada ahayn in nolosheena aynu ku qaadanin. inkastoo nasiibkii qadarka halkiis isku yahay, waxaan rajaynayaa walaalka bedelay iyo madaxda kale oo inay farxad geliyaan dadka noloshooda iyo rajadooda hoos u dhacayna ay dib u soo celiyaan shacabka ku nool xaaladaha adag. alle waxaan kaga baryaa xilka aad banaysay mid ka sareeyo inuu Rabbi kuu sahli doono. ducadeedana ayaa kula jirta aniga inta kale aad caawisay ee Turkiga keentay. waad mahadsantahay Mudane Thaabit. ruuxa gala abaal mar baa loo gudaa. Cabdullaahi Sheekh Mukhtaar Cabdulqaadir, sidaa iyo nabadgelyo. kulanay dambe oo xiiso leh.